fadlan haddii aad tahay markaagii kugu horeeyay aad soo booqato kanaalkan fadlan taabo subscribe furana gambaleelka si aad u noqoto daawadaha ugu horeeya ee waxyaabahan soo gelino soo gaara waad ku mahadsan tahay haddii aadna soo booqatay mar walba waxaad tahay saaxiibka noo dhow fadlan subscribe saar mar kale haddii aan kugu celiyo siina share gareey videogan Manchester United iyo Chelsea waa kulanka ugu weyn ee isbuuca furitaanka xilli ciyaareedka horyaalka Premier League waxa ay kulan adag u tahay tababaraha cusub ee Blues Frank Lampard oo markii ugu horeysay Chelsea ku hogaaminaya garoonka Old Trafford horyaalka Premier League dalka Ingiriiska shaqadiisii ahayd in uu kooxda u diyaariyo xilli ciyaareedka cusub waxa si adkaaday waxa si adkeeyay in uu ka tagay xidigii kooxda Eden Hazard isla markaana uu awoodi waayay in uu ciyaartoy la soo saxiixdo maadaama xiraad suuqa kala iibsiga ay saaran tahay Ole Gunnar Solskjaer macalinka kooxda Manchester United waxa uu soo iibsaday saddex ciyaaryahan ee kala ah Harry Maguire, Aaron Wan-Bissaka iyo waliba Daniel James laakiin taageerayaasha ayaa filayay in ay saxiixo kale ay imaanayaan kooxda ka hor inta uusan suuqa Ingiriiska xirmin tababare Frank Lampard ayaa xilli dambe go'aansan doona haddii N'Golo Kante uu diyaar u yahay in uu wajaho kooxda United wali waxa su'aal ay saaran tahay ciyaaryahanka William haddii uu diyaar u noqonayo kulanka Old Trafford kulanka waxa uu dhaxeeyaa kooxda Manchester United iyo kooxda Chelsea wuxuuna soo gali doonaa saacadu markii ay tahay 6 iyo waliba qadar 30 daqiiqo ah waa dhanka geeska Afrika ama Maqribki garoonka lagu ciyaari doono waa Old Trafford garsooraha waxa uu noqon doonaa Anthony Taylor shaxda macquulka ayaa sidan noqon doonta Man United waxay ku soo gali doontaa shaxda macquulka 4-3-1-2 goolka waxa ugu jira David De Gea, Lucas Shaw, Lindelof, Maguire, Wan-Bissaka, McTominay, Pogba, Matic, Jesse Lingard, Antonio Martial iyo waliba Marcus Rashford kooxda Chelsea ayaa iyadana waxa ay ku soo gali doontaa shaxda macquulka waa 4-2-3-1 ayaa waxa ka soo muuqan doona Emerson, Christensen, Zuma, Azpilicueta, Jorginho, Kante, Pulisic, Mount, Pedro iyo waliba weerarka uu ka ciyaari doono Oliver Giroud